الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلهي بقى سبحانه وتعالى مهد ما أنت ديسكله وكلن كيني لبعض قيبتا سؤالها وينوغ جوابي شيخ محمد شيخ عمر ديرير ويديموه وحي كلمادين ضدك مسلين تمساجك كنتو كذا iyo dadka ku xidhan baraha bulshada ee sheekha sida facebooka whatsappka youtube-ka iyo meelaha la midka ah cid kastoo su'aal diini qabtaana goobahaasaan soo sheegay bay ku soo gudbin doonaan si toos ah waxaynu isaga bilaabi doonaa su'aalaha fadiilada sheekh qaybta soonka iyo cibaadaadka ayaan ku horeyn doonaa su'aasha ugu horeysa gabadhani waxay leedahay sheekh hooyaday oo muddo 2 sano u jiiftay xanuun jirka ah hadda saladan welina aan kici karin raashin ma ka bixin karnaa labadii sano ee hore ee aanay soominna sidoo kale maxaa la yeelayaa su'aasha labaad qofka soo qoray waxa uu leeyahay ayeeyday oo ku nool dalka Mareykanka ayaa xanuunsanaysa mana soomi karto qof ayaanay bisha Ramadaan afurisa oo ay afursiisa marka waxa uu leeyahay qofka ay afurka siinaysa meel kale ma ka afuri karaa salaana hadii casuumad loogu yeedho ama waxyaalaha midka mise kaliya wuxuu cunayaa oo wixii qofka ay miskiin waxa weeye afurinaya uu siinayo su'aasha saddexaad waxa uu leeyahay sheekh bishan inta badan waxaanu bixinaa sakada kolka sheekh qofku marka uu sakada bixinayo amaahdii ka maqnayd ee laga qoostay ma u niyoon karaa sako oo ma ka ansaxaysa ayuu leeyahay su'aasha afraad waxa uu leeyahay sheekh hadii aan isweydiiyo sidee ayuu ilaahay wax u cadaabayaa sidee ayuu wax u janaynayaa dhimashada maxaa ka dambeeya su'aalo noocaas hadii aan maskaxdeeda ku furo ma shirkiba soonkaygiisa wax ma yeelayaa su'aasha ugu dambaysa qaybtan waxa uu leeyahay qofka soo qoray sheekh waxa aan leeyahay xiiq waxaan aan isticmaalaa dawada naqaska ee afka laga qaato marka aniga oo sooman hadii aan naqasku i qabto ma isticmaali karaa soonkaygiisa wax ma noqonayaa الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سؤالها قفك بكاوي نقصر نقنيا لكن درس كان كي كهربين وكجا جوابني قفك بكانك إنه لبا قيبات نقنيا marka horta uu iska afuraya sharciga u baneeyay sidoo Ilaahayba ku sheegay suuratul baqara aayadaha uu kaga waramay soomka laba jeer buu soo celiyay xagga hore iyo xagga dambe qaybta dambe waxa uu waman kaana mariidan aw ala safarin fa'iddatun min ayaamin ukhra qofkii ama socdaal ku jira ama buka ha iska cuno ruqsad buu haystaa iyo fasax hana soo qaleeyo waa haduu qaleyn karayo hadaanu qaleyn karayninna raashin ha bixiyabayn marka sanadihii hore iyo sanadaha dambe iyo kuwan imakaba dee wuxuu leeyahay qofkii ma qaleyn karaya mise ma qaleyn karaya hadaanu qaleyn karayn raashinkaas uu bixinaya su'aasha oranaysa miskiin baan wax siiyaa maalin walba marka haduu meel kale wax ka cuno maalintaasi miyay ii jirtaa demee kuma jirto adiga kaama cunina dad kale uu ka cunay maalinta dad kale uu casuumay marka haduu isagu iska tago casuumad helay mid kale adigu casuum maalintaasi kuma tirsana way cala kulli xaal waxana la doonayaa de qof qurayna wixii la isugu geynine haduu kan meelaysan yahay mid kale oo meelaysnayn wax la siiyo waxana lagu bixin karaa raashinka qoyaan iyo qalay labadaba lagu bixin karaa oo raashin la karsado bariis daqiiq sidii kiisa ka fidriga oo kale kaana waa lagu bixin karaa 30 kiilo 25 kiilo gadbad inta qofku ku bixin karaa sakada iyo deynta soo noqon weyday haddii deynta aad qofka aad ku leedahay aad sakada siinaysa sax maaha laakiin haddii uu yahay adiga hadday tahay taasuu ma imika ina khusaysee culimadu waxay leeyihin maya dheef adiga kugu soo noqonaysa weeye qofkii deyn baad ku lahayd waad ka soo saari weyday waxaad leedahay waar iska tag sakadii baanu ku xisaabinay aduun bay kugu soo noqotay adiga ayuunbaa dheeftaa iska leh marka waad ismacaashsiisi
adigoo miskiinkiisiiyo cunay oo kale dhinacaasay qola ka eegayaan qolana waxay ka eegayaan dee ilaahay wuxu uhi waaqiimuu salaata wa aatu zakaa sakada dhiiba baa layidhi mabaa dhiibinba waxayd adigu inaad qofkan u dhiibto umaa dhiibin way jiraan culimada qaar banneeyo le alibraa'u waalicطaa'u humaa sawa inaad qofkii ka saamaxday iyo inaad siisaa waa isku mid oo waa jiidis iyo qaadis way jiraan qaar leh sida xalaal miirashada badani waxa weeye kana inaad ka raadsato kuwa kalena aada siiso sakada su-aalahan uu ninkani sheegay inuu isweydiiyo sidee buu ilaahay qofka u janaynaya muxuu cadaabayaa dembigan ilmaha yar maxaa loogu cadaabaya arrimahaas qofku kol haddii aanu afka ka odhanin ficilna samaynin ee wax uurka ku soo wareegaya ay tahay oo dee laabtiisa uun kusoo noqnoqonaya shaydaankunbuu iska naarayaa waswaaska ah shaydaankuu iska naaraya wax dhibana male siduu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam xadiidkii sugnaa ina allaha tajaawaza liummatii cama xadaat bihi anfusuha calaa macna xadiid ilaahay ummaddayda wuxuu u dhaafay wixii nafteeda ay ugu sheekayso wuxuu qofku naftiisa ugu sheekeeyo bahasha bakhaakda la yidhaahdo iyo soomka waa oxygiintoo kale un qofkuu neefsanayo saa daraaddeed wax dhib a ma laha oo cuno iyo cabid looma tixgelinayo markaa hawadaa uu qofku isku furaya naqaska ka jaraysa markuu naqas ku dhegan yahay hadduu isku buufiyo balaayo ma laho soonka kama jebinayso wallahu aclam jazaaka allahu khayran fadiilat sheikh qeybta labaad ee su-aalaha su-aasha ugu horeysa gabadh ayaa soo qortay waxay leedahay sheekh aabbahay ayaa guriga nagula nool annaga oo qoys ah aabba ma tukado mana soomo si walbana waan ula hadalay marka ma ii bannaan tahay inaan anigu guriga uga guuro oo anigu aanu meel kale dego o aan iskaga taga ma ii bannaan tahay ayay leedahay su-aasha labaad wiil ayaa soo qoray su-aashaas hore ayay runtii u dhowdahay waxa uu leeyahay sheekh aabbahay waxa uu dhaqan ka dhigtay cayda ilaahay nebiga iyo diinta isaga ayaana biilkana siiya oo reerka biiliya kolkaa biilkaasi muxuu noqonayaa aanu cunaynaa buu leeyahay su-aasha saddexaad walaalka soo qoray waxa uu ka soo diray facebooka waxa uu leeyahay waxa aan ku noolahay magaalada addis ababa ee dalka etoobiya waxaana xabashida guryaha lihi dhaqan ay u leeyihiin in habeenkii ay albaabada xidhaan oo ay qufulaan taasina waxay iga hor istaagtaa in aan salaada subax masaajid kusoo tukado wax dembi ah miyaan ku leeyahay maadaama oo aanan awood u lahayn inaan baxo su-aasha afraad waxa uu leeyahay sheekh waxaa jira dad badan oo wakhtiyadan bisha ramadaan masaajidada dhexdooda ku isticmaala baraha bulshada sida facebook iyo waxyaabaha la midka ah marar badan iyagoo khayr ka daawanaya se wixii waa mareeg oo waxyaabo badan baa kaaga soo bixi kara adigoon ku talagelin markaa ramadaankii iyo masaajidkii wax ma yeelayaan su-aasha qeybtan ugu dambaysa waxa uu leeyahay sheekh nin iyo xaaskiisii ayaa waxay isku qabteen arrimo caafimaad ninkiina waxa uu ku yidhi gabadhii xaq iiguma lihid inaan dhakhtarku geeyo kolkaas sheekh caafimaadku miyuu ka mid yahay xuquuqda ay haweenaydu ku leedahay ninkeeda waa nasiib darro ku dhacday awlaadda waalidkoodu aanu tukanaynin ama soomaynin ama diinta iyo wacaayayo waxyaabaha muqadasaadka ah nasiib darro weeye cid waliba laakiin door bay leedahay iyo kaalin ay qaadato isaguma qasbi karo waa waalidkii laakiin wuxuu ku leeyahay talo iyo nasiixa dibqan liqowlihi tacaala isagoo aayadda ku camal falaya ilaahay uli subxaanaه wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara naftiina iyo ehelkiina naar ka nabadgeliya buu laayay wa min baab watacaawanuu cala albiri waاtaqwa waxa wanaagsanna isu kaashada buu ilaahay yidhi alla ka cabsiga marka waxaad isku dayaysaa xasba istiطaacatik inta aad kari karayso inaad la taliso waaniso dad wanaagsan ku xidho laakiin masruufka uu idin siiyo mar haddii aanu xaaraan ka soo shaqaynin isaga waa isticmaali kartaan oo waa cuni kartaa inantaad kale tidhi waalidka miyaan uga guuraa gurigana maya ha uga guurin laakiin sidaa aynu sheegnay wixii aad siin karaysana sii nasiixadaa iyo taladaa wanaagsanna sii ilaa ilaahay wuxu uhi wasaaxibhumaa fi dunyaa macruufa haddee xataa xagga diinta ku xuyin ama gaalba uu yahay la dhaqan wanaagsan u samee adduunyada
lacala allaha yahdiih waa laga yaabaa inuu ilaahay soo hanuuniyo laa tadrii lacala allaha yuxdiثu bacda dalika amraa waaba laga yaaba waxaanaad filayn inuu ilaahay ka keeno markaa taladaasaynu raacin lahayn labadaa qofe waalidka ka cawday ninka sheegay in meel lagu qufulayoo aanu salaada subax u bixi karaynin marka hore ka tabaabushayso meelaan la qufulaynin tag haddii waddanku wada qufulan yahayna danibo way ku qasbi laakiin horta waxaad isku daydaa maadaama quudkii ruuxda iyo quudkii quluubta iyo xaqii ilaahay ay tahay cibaadadii iyo jamcu meelaan qufulmaynin inaad tagto haddaad cibaadada u dadaalaysana waa laga yaabaa inaad hesho laakiin haddii ay suuroobi weydo taasi macduur baad noqonaysaa mukrah baad noqonaysaa qof la dirqiyey oo loo diiday jamacii su-aasha kale ee odhanaysa facebooka iyo whatsappka iyo masjidka waxaa muhiimah un wixii xun inaanu qofku masjidka ku daawanin ama aanu ku baarhbaadhin wixii wanaagsan dee qofku ha ka faa'iidaysto haddii si kadisa waxumi uga soo horbaxana ha iska xidho dadkana yuu ka mashquulinin wax akhrisanaya ama tukanaya sanqadhiisa iyo muuqaalkiisa yuu ku mashquulinin laakiin maadaamuu yahay waxaan seef laba af leh dhinaca wanaagsan unu isticmaal su-aasha shanaad ee odhanaysa ooridu ninkeeda miyay xaq ugu leedahay inuu daaweeyo waa mas'alo khilaafiya bayna alfuqahaa culimmada qaarkood waxay leeyihin maya dharka dhuuniga guriga cunnada cabidda aaladaha isku nadiifinaysa waxaasay xaq ugu leedahay laakiin isdaaweynta maadaama qofkii doonaana uu isdaaweeyo qofkii doonaana xanuunkaba iska dugsado waajib uguma laha laakiin qayb ka mida fuqahada waxay leeyihiin maadaama ilaahay caashiruuhunna bilmacruuf si wanaagsan ula dhaqma dee qofkii oo agtaada ka taahaya oo aad dhakhtarka geyn weyday wanaag kulamaa dhaqmin marka qowlkaa dambeaynu qaadanaynaae wixii aan ka badbadis ahayn ee daruuri ah xaq bay ugu leedahay ooridu ninkeedu inuu ka daweeyo ka badbadiska waxaynu uga jeednaa iyadoo wax yar lagu daaweyn kara hadday tidhaa dhakhtar hebelun anigaygee mid qaaliyahoo taymistan ah 10 jeer labalaabmaya ama iyadoo gudaha lagu daaweyn karayo dhakhtarka agteeda hadday tidhaa may inta hinaasto aniga mid debaddaa baan rabaa oo $10,000 kan tag baa la leeyahay haddii kale halkaaga ka taah marka wixii aan dhib ahayn weeye qofka waa inaan la dhibin wixii xaq uu leeyna waa la siinaya isna waa inaanu ka badbadin wallahu aclam jazaaka allahu khayran qaybta ugu dambaysa su-aalaha su-aashan gabadh ayaa soo qortay waxay leedahay sheekh waxaan dhigtaa qur-aanka waxaanan aad u necabahay runtii qur-aanku inuu iga kala go-o marka waxay leedahay marka aanan daahirka ahayn mobilka ayaan qur-aanka ka diyaariyaa oo aan kaga baxaa marka ma ii bannaan yahay mobilkaas inaan qur-aanka ka diyaarsado casharka iyo subciska labadaba inkastoo su-aasha hore inoo soo martay haddana waxay leedahay runtii nooc ilxaaxa su-aasha ku jiray su-aasha labaad waxa uu leeyahay saa'ilkan sheekh aabbahay iyo hooyaday waxa ay kala tageen anigoo aad u da'yar muddo dheerna maan arkin aabbahay oo nolol kale ayuu samaystay in badan ayaanan isku dayay inaan la xidhiidho aabbahay si cadho uu hooyaday u qabo awgeed ayuu diiday xidhiidhkayga kolkaa wixii uu waalidnimo xaq iigu lahaa miyay iga dhacayaan maadaama uu isagii ijaray oo uu diidan yahay inaan markaa ama la kulmo ama u tago su-aasha ku xigta waxa uu leeyahy sheekh waxaan dhowr jeer isqabannay qaar ka mida qoyskayga aniguna waxaan ku dhaartay inaan gooyo oo aanan dib ula hadlin ama aanan dib ugu tegin oo aanan mar dambe la kulmin haddana waa qoyskaygii oo anigoo iskaga dhex jira ayuun baan is arkaa dhaartaydaa qaraabogoyska ah miyaa kafaara gud laygu leeyahay su-aasha afraad waxa uu leeyahay qofka soo qoray sheekh waxaan ku noolahay dalka ingiriiska waxaana aan ka shaqeeyaa meel digaagga lagu qalo digaaggaasna marka la qalayo bisinka looma qabto noocyada kale ee mayeedhaanka ah sida lo-da oo kalena mararka qaar rasaas ayaaba lagu dhuftaa marka la gowracayo kolkaas sheekh muxuu noqonayaa xukunka lacagta aan meeshaas ka qaadanayaa su-aasha ugu dambaysa waxa uu leeyahay walaalka soo qoray sheekh aniga oo yar ayaa waxaanu islaynay qof waxaanu iga riday ilig waana la iiga xaqay oo iligii waxa aan qaatay magtiisii muddo kadibna iligii ayaa ii soo baxay lacagtii miyaan iska celinaya bismi illaah kitaabka qur-aanka
waxaan leeyahay mobileka haddii kitaabka intoo laga soo saaro laga eegayo sidan kitaabka oo kale waa kitaabkii electroniga weeye sidaa daraaddeed waataynu ka soo jawaabnay su-aashii tan ka horreysay sidii kitaabku taabashadiisa iyo akhrintiisu ay kaaga xaaraan ahayd unbay la midta haddii aabbahaa su-aasha labaad haddii aabbahaa uu diiday inuu kula kulmo ama ku gooyey adigu ma goynaysid midkiinba waajib baa u yaalla marka hadduu waajibkiisa gabo adigu kaaga gabi maysid waajibku waxaa ubadkiisa inuu rabeeyo oo xidhiidhiyo oo wanaajiyo oo ori ay isdiideen aanu ubadka uga tegin marka hadduu kaalintiisaa qaadan waaye adugu xumaan lagama horgeeye waajibkaagii qaado ahaa waalidka inaad xidhiidhiso oo aada u samafasho hadduu ku gooyeyna xaqiisu kuma dhacayo gooynta adiga uu ku gooyey labadiinna xaq baa kala weyn kaaguna waa ku walad xaqiisuna waa kii waalidka dadkan aad ka dhaaratay su-aasha saddexaad waxay dadkan aan ka dhaartay qaraabada ah in haddana ku dhex jiro asalkeedaba waxaa lagu dhaartaa wixii xalaala qofku hadduu shay xaaraana nadar ku galo ama ka dhaarto waa inuu kafaara gud bixiyaa wixii xaaraanta ahaana ma samaynayo wixii waajibka ahaa ee uu ka tegey ee uu inaanan hebel la hadal ayaa intaa iga wallaahi oo u dhaartay kafaara gud buu bixinayaa dhaartiisii kafaara gud buu ka bixinayaa qofkiina wuu la hadlayaa waajib kastoo qofku uu ka dhaarto wuu samaynayaa kafaara gudna wuu samaynayaa xaaraan kastoo uu ku dhaartana samayn maayo kafaara gudkiina waa la imanayaa su-aasha ahayd gowrac meel digaag iyo xoolo lagu gowraco ayaan joogaayo gowracaasina waa dabxun hayru sharciy gowrac aan sharci ahayn waxaynu ku xawilaynaa goobtaad joogto culimaad joogta marka culimadaasaad la kaashanaysaa bal gowracani noocuu yahay inuu gowrac saxa yahay iyo in kale iyo waayo iyagu si life oo toosa bay u arki karayaan ingiriiskana dee culimadu way wada joogaan marka iyagaan ayaan rajaynaya inay kula qiimeeyaan meelaha qaarkood dad muslimiina baa loo yeedhaayoo gowraca wax ka wadwada inkastuu yaro silan yahay oo bisinka u qabta meelna waa meelaan gowracna la taabsiinin bisinna lahayn tafaasiishaasaa ku jirta marka nooca ay tahay culimadaasaan kugu xawili lahaa bal inaad ula tagto su-aasha u dambaysay ahayd ilig baa la ii xaqay waa iligii hadiyo jeer intaa waxa laga yaabaa kii isagoon dhicin oo ilkii dambe aan ahayn ayaa laga ridaa laga yaabaa mar hadduu soo baxayaba waanay dhacdaa ilig kii labaad isagoo ah marka la rido haddana soo baxa oo dee fadli ilaahay uu qofka siiyowna almuhim iligii lagu xaqay hadduu kuu soo baxay magtii baad celinaysa oo waxaa halkaa ka muuqata inaanu bi'ine uu kuu fayoobaa markaa waad iska celinaysaa qof kastoo wax loo xaqo oo wixii dib ugu hagaagaan wuu iska celinaya maalan gacantana qofkii naafo noqotay naafanimadii baa lagu xaqay markaa si caadi u noqotay dee ha iska celiya xoolihii wallahu aclam jazaaka allahu khayran sheekh aad iyo aad baad mahadsan tahay ilaahay subxana wa tacala sheekha miisaanka xasanaadka ha u saaro kulankan ku xiga oo beriya insha allahu tacaala ayaynu kulmi doonaa ciddii su-aal qabtaa ee masaajidka waxaan ka codsan lahayn inay hore u soo gudbiyaan intaan la gaadhin wakhtiga taraawiixda si aynu hore su-aalaha runtii ugu sii kala shaandhayn karno oo u diyaarin karno aad iyo aad baa umahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu